gabdhaha ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal ee ku dhaqay dalka Canada ayaa waxay deeq gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada xeebaha iyo buuraha ee goboladan Awdal iyo Salal waxayna gabdhahaasi deeqdan raashinka ah u soo mariyeen dadkaasi barakacayaasha ah hay'adda Amoud Foundation wakiilkeeda Somaliland Mudane Cabdiwahaab Ciga Axmed waxa uu ka waramay deeqdani sida ay dadkaasi u gaarsiiyeen iyo qaabka ay u qaybiyeen aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablaha walaalahay ah ee u dhashay gobolka Awdal iyo Salal ee degan dalka Canada magaalada Toronto hablahaasi runtii dadaal qayr xad ah ayay galeen waxay u soo gudbiyeen dadka walaalahooda ee abaaruhu soo barakiciyeen kuna sugan magaalada Gargaara ee ka tirsan degmada Luqaya waxay u soo gudbiyeen raashin in badan bay la soo hadleen in badan bay telefoon ii soo direen hablahaas waxaad ugu ducaysaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro wanaaga iyo maaragtay deeqda ay u soo gudbiyeen walaalahooda barakacay waxaan leeyahay aad iyo aad u dadaala oo mar labaad dadaal kala geysta waxaan ku talinayaa oo kula talinayaa walaalahooda kale ee iyaga la mid ah ee degan dhammaan dalalka dibadda iyo goobaha kale ee maaragtay gabdhahaasi ka duwan in ay sida walaalahood yeelaan una soo gargaaraan walaalahooda jooga gargaara iyo goobaha ku xeeran ee ay abaaruhu barakiciyeen waxaa sidoo kale ka mahadnaqay deeqdan qaar ka mid ah dadkaasi barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada xeebaha iyo buuraha ee goboladan Awdal iyo Salal walaalahayaga islaamka ee soo caawiyay salaanka Allah uu rajeeyo oo u gudbinayna Allahaasi waxa weeyaan Canada jooga gaar ahaan magaalada Toronto jooga waxa weeyaan bariya iyo buuraha ee soo xasuustay waxa weeyaan walaalahooda islaamka ee qadaalaysan soo xasuustay ee caawimada u soo diray waxa salaan iyo hambalyo mudan walaalahayaga islaamka ee jooga ilaa qurbaha meesha kasta gaar ahaan dalka Canada magaalada Toronto soo caawiyay walaalahooda tabaalaysan ee abaaruhu tabaaleeyeen ilaa muddo 2 sano iyo saayida hadday tabeen oo soo xasuusteen walaalahooda islaamka waxaan u gudbinaynaa hambalyo qaali ah